السلام الله عليكم كلنتو عنو ونكسن خيارتنا داونيسا اي halkani waa barta youtube kaynu ku leenahay ee Somali Super Sport waa saaxiibkeen Ismaan Fantastic waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta habeennimadan qodobadan ku eegi doono waxa ka mid noqon doona Chelsea waxay ku duuleysaa nadigaasi Barcelona xidig markaasi cajiib ah oo ay u arkaan badalka wiilka haatan u tagay Real Madrid ayay ka baadi goobayaan Mohamed Salah sida muuqanaysa horyaalka dalka Ingiriiska ayuu baaqi ku sii ahaan doona laakiin ma aha nadigaasi Liverpool hadii aysan ogolaan in laacibka mushaar fiican ay siiyaan Manchester United rajo wacan ay ka leeyihiin saxiixa xidiga haatan ay u dhow yihiin ee lagu magacaabo Frank de Jong xilli musaafirin dhowr ciyaartoy ay sameeyeen qodobada ay ku kala daawdeel ku eegi doona dhamaantood waxay u badan yihiin xanta suuqa kale iibsiga ee u diyaar garooba waxaan ku hormaraya dhanka iyo garabka kooxdaasi Bayern Munich xidiga lagu magacaabo Gnabry waxa la tilmaamaya in shaki uu gelinayo mustaqbalkiisa kooxdaas isla markaana waxa uu gacan haytinaya in uu qaadi doono wadada uu marayo saaxiibkiisa Lewandowski laacibkan wuxuu ku adkaystay in tixgelin buuxda aanu ku haysan kooxdaasi lagu magacaabo Bayern Munich qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa 2023 waa la isku fahmi waayay qandaraas cusub in qalinka uu ku duugo wargeyska AS ayuu ka sheegay in go'aan uu qaadanayo maalmaha fooda nagu soo hayo ma aanu shaacin halka wajiga uu saari doono laakiin laacibkan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa si weyn looga doonaya marka waxaan rajaynaynaa in laacibkan lagu arki doono horyaalka dalkaasi Ingiriiska Bayern Munich wali warkama aysan soo saarin xaaladda laacibka Di Maria Paris Saint-Germain waa uu ka tagay dabcan dhowr koox ayaa la xiriirinaya naadiga Juventus ayaa la xusaya inay u dhow yihiin haatan waa uu hadlay laacibka waxa uu yiri dhamaan dadka waxay doonayaan inay ugu arkaan horyaalka wadanka Talyaaniga aynu sugno maalmaha soo socda marka suuqa kale iibsiga uu furmo ayuu ka yiri idaacada ESPN ee laga leeyahay dalkaasi Spain warar hore u soo baxay waxay sheegayeen in laacibka uu ogolaaday in qandaraas 3 sano markaasi gaaraya in qalinka uu ugu duugo kooxda Juventus xidiga haatan u tagay Real Madrid Antonio Chelsea ka howlelay waxa uu shaaca ka qaaday sida uu ugu faraxsan yahay kooxdaasi Al-Maliki ee Real Madrid qandaraas 4 sano gaaray ayuu u saxiixay qaab xor ayuu ugu tagay laacibka haatan waxa uu sheegay in uu doonayo in markaas wacdaro uu la dhigo kooxda Real Madrid isla markaana uu muujiyo qiimaha ay ku bixiyeen in markaasi uu ka soo dhalaalo وهاجاك داوديال إسكو أو إسنا ريال مدريد كتجي هاتن وحكولو لمايا لبكوح أو تريانيجا متكود أيها التمامية إنه تجي دونه ناديدا كلاه AC ميلان إيو روم أي سوون وجود دجالمية لاعب كاسي كوبت سمية سجال سنة كدب ريال مدريد وكهولي وحاونا مركزي هاتني هاي حدق حرة كدب مدة دارو جوجي قلعة سانتياغو برنابيو كلاشيو ميركاتو waxay leedahay laacibkaasi la tanajirka waxay u badan tahay inuu yimaado horyaalka Talyaaniga waxaana uu ka fikiraya dhankiisa inuu ku biiro naadiga Rome ee Talyaaniga Rome waxay u bandhigtay laacibkaasi sanadkii mushaar gaaraya 6 milyan iyo bar in markaasi uu qaadan doono sidaa darteed arinta waxay keeni kartaa in wadaxaajoodka labada dhinac markaasi u socda inuu miro dhalo qandaraas 3 sano ahna way u soo bandhigeen Somali Super Sport ay wali daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay daawadayaal hadii ay tahay markii kugu horeysay si shargaray una gudbay asxaabtaada naadiga Juventus waxay haatan bilaabaysaa raadinta badalka Alvaro Morata طبعا لاعبkaasi Atletico Madrid ayaa iskale toosna ulma uu wareegi doona laacibka waa uu tagi doona sidaa darteed waxa haatan la tilmaamaya in ay raadinayaan badal buuxa xidig u noqon kara laacibkaasi ka oo la filo inuu huleelo wargeyska Tutto Sport waxa uu leeyahay waxa ka go'an in markaasi ay dalab ay ka geeyaan midkood Jesus oo Manchester City ah iyo xidiga kale Timo Werner oo ciyaara naadiga Chelsea labadaas laacib ay isku dayi doontaa naadiga Juventus
weeryaanka naadiga Inter Milan Martinez isna mustaqbalkiisa ayuu ka hadlay waxa uuna ganafka ku dhuftay warar toddobaadii ugu dambeeyay tilmaamayay inuu ka tagi doono naadigaasi Inter. Chelsea iyo Tottenham ayaa lala xiriirinayay laakiin haatan laacibka go'aankiisa waa uu cadeeyay kadib markii qarankiisa koob uu la qaaday aroornimadii Saka waxaana haatan laacibka uu sheegay in go'aankiisa uu cad yahay waxaan doonayaa inaan baaqi aan ku sii ahaado Inter Milan xil ciyaareedka dambe ayuu yiri waxa inta uu sii raaciyay inaanu jirin wax dalab ah uu ka helay dhanka kale kooxaha la tilmaamayo in markaasi ay xiisanayaan umurtan ayaa imaanaysa xilli Inter Milan iyanaysan war ka soo saarin arinta laacibka maadaama ay jireen dalabyo laga geeyay saxiixiisa marka lama oga in Inter ay damacsan yihiin inay fasaxaan laacibka iyo in ay sii haysan doonaan. وهجاج مانشستر سيتي وحال ليه وكيل محمد صلاح يقول ما يلقى ضنيان وكأدن إن لجو قنعي إن لاعب كوكهول له أنفيلد ورهره وحاينو كوشيغني اسمه كان صاحي جني إن صلاح وجان كوجاري هدي الإسلام اللي جوا قندراس عصب إن متكيس هاتر وده مايستو كدبنا قاب حرة وقتره وليب باقي وكو هذا ريال كإنجليزكا جلسي أينا إيش كويسة لكن حاتن درببا دقائق مانشستر سيتي أيا لدريمية وكو أدن إن لاعب كاسي أي جيان قلعة اتحاد وحي أبلان قادين إن يسين دونان لعقت هاتن وكدل بنيو ناديغا ليفربول وكدو ويران أفر بقول وكن لعقت جنيغا استرلينكا كابتنka naadiga Arsenal Lacazette yaa la tilmaamaya in markaasi ay heshiis la meel dhigeen kooxda Lyon oo ku aadan in qaab xura uu ugu tago kooxda sano jirkaas wali looma bandhigin qandaraas cusub sida darteed laacibku wuxuu go'aansaday in dib uu ugu laabto naadigiisa hore ee dalkaasi Faransiiska qandaraaskiisana haatan ayuu gabagabay yahay sideedii kulan ee ugu dambeysay naadiga Arsenal ay ciyaareen laacibkaasi laguma soo bilaabin waana mid keenaysa in mugdi la sii geliyo mustaqbalka Lacazette ee qalcadaasi Imaaratis naadiga Chelsea waxay qayb ka noqonayaan go'aaminta mustaqbalka Lukaku ka oo loo badanayo inuu tagi doono Inter Milan ay ka hor istaagayaan waayo Inter Milan waxa ay rabaan in amaah ay ku qaataan sida darteed Bayern Munich ay ka fikirayaan in haatan ay u bandhigaan in laacibkaasi ay qaataan laacibkan waxa muuqanaysa soo laabashadiisa Chelsea inay noqotay mid fashilantay kadib isku dhac isaga iyo macallin Thomas Tuchel guud ahaan bandhig wacan laacibka ma aanu muujin sida darteed Chelsea haatan waxa ka go'an in laacibkaasi ay fasaxaan waxaana loo badinayaa in uu tagi doono inta suuqa kala iibsiga xagaaga haatan uu furan yahay sida darteed Chelsea lacag ay rabtaa in laacibkaasi ay gabaha ka takhalusaan sida darteed Bayern Munich ay ku qalqaalinayaan in toos ay u iibsadaan waliba laga siiyo lacag macquul ah Manchester United rajada ay ka leedahay saxiixa xidiga Frenkie de Jong ee naadiga Barcelona aad ay u wacan tahay waxayna rajeynayaan inay ka faa'iideystaan xaaladda dhaqaale ee naadiga Barcelona kuwaas oo ay ku qasbayaan in marka ay ogolaadaan 50 milyan oo lacagta Euroga Barcelona lacag intaas ka badan ay dalbanaysay laakiin haatan laacibkaasi waxa muuqanaysa in uu ku cadaadin doono kooxdiisa in markaasi ay fasaxaan isla markaana ogolaadaan dalabka Manchester United inkastoo warar hore loo tilmaamay ay sheegeen in laacibka walwal yar uu ku jiro ku aadan dhanka championka iyo kooxdaasi Manchester United oo aan ka qayb gali doonin ilaa ay ku soo guuleystaan mooyaane koobka kale ee Europa League naadiga Chelsea waxay diyaar u tahay in dalab ay ka geeyaan wiilka daafac uga ciyaara naadiga Barcelona ee lagu magacaabo Sergio Dest lama helin qiimaha lacageed laakiin Thomas Tuchel ayaa la dhacsan laacibkaas waxayna u arkaan bedelka Antonio kaas oo Real Madrid aaday xiriir toos ay haatan kula jiraan naadiga Barcelona lama helin jawaabta ka timid naadiga Barcelona xidigaas tani markii Camp Nou uu yimid 2020 October waxa uu saftay 72 kulan dhamaan tartamada iyadoo 40 kamid ahna markaasi ay yihiin kulamo kaga soo bilowday horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga وهاجا داود الوركي وقدم بيكوبدا عكتا يحنت سوق كلا إيبسيجا وها كوسو جبين دونا وركا كؤدن يونايتد إيو وليبا حدقة صف مركا هاتنا يفصحين إلى سنة عياتي أي جارين وها قدم بيي أو مغربي بحي حدقة لقوم عاو توان ماتا لينغارد إدن جافاني ماتيش دمانتو قدرسيدو وايد مادن سدا درتد
qaab xur ay uga tageen macalinka cusub ee United waxa uu sameynaya dib u shaandhayn ku aadan kooxdaasi marka ciyaaryahano badan ayaa la tilmaamaya in calaamad su'aal la dul saari doono mustaqbalkooda qalacadaasi Old Trafford ugu dambeyntii war haatan soo dhacay oo dhanka Mohamed Salah waxa ay sheegayaan in warbaahinta dalka Ingiriiska waliba laacibka uu u gacan hatay leeyihiin in uu sii joogi doono kooxdaasi lagu magacaabo Liverpool laakiin ma aha wax qandaraas cusub dabcan wararka way soo tartarayaan waxayna la xiriiraan warkii goordhaweyd aan hore u sheegay ku aadan in laacibka go'aanka dambaysta uu gaari doono haddii Liverpool aysan ogolaan qandaraas cusub in markaa uu ku tagi doono qaab xor wahagaag wararkii ugu dambeeyay xilligan caawa naga inta daawada la sii sheer gareeya u gudbiya saxaabtiina waa saaxiibkiin fantastic waxaan idinkaga tagayaa fi amaan illah